war degdeg daawadayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa hortagay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna ka horjeediyay khudbad xasaasi ah oo la xiriirta madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya waxa go'aankan degdega uu ku soo aadaya saddexdii maalin ee ugu dambeeyay Israel markii ay qoonsatay Somaliland labada gole ee baarlamaanka ayuu ballansaday madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud habeennimadii xalay barqadii maanta kulankooda ayaa dhacay khudbad xasaasi ah ayuu jeediyay oo aan ku hayaa laakiin waxa iscazilay xildhibaan ka soo jeedo deegaanada waqooyi ee Somaliland gaar ahaan senator Dube wuxuu ahaa wasiir sidoo kalena wuxuu ahaa hadda senator ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya kana soo jeedo Somaliland wuxuu ka mid yahay dadka lagu eedeeyay inay ka dambeeyaan kala qaybinta Soomaaliya dawladda federaalka ay ka tirsan yahay Somaliland goostkada ay ka shaqeynayaan waxa kale oo laga shakiyay safiirkii Hindiya u fadhiyay Soomaaliya oo deegaanada Somaliland ka soo jeedo oo Muqdisho loogu yeeray kala shakiga halkii ugu sareysay ayuu gaaray oo xidda guddoonka aqalka sare shaki xoog leh ayaa laga qabaa khudbadan xasaasiga ayuu jeeday madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ila daawo ninkii kala saar lahow ninkii kala soo wado ninkii suxun u fakaro aday talada ku sheegto sidaad moodaysa maahe waroy Soomaali bale haddaba waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyay caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho ka imaanaya senator Dube isaga oo dalka Tibetiisa ku sugan ayuu iscasilay waxaana la gelinayaa tuun xoog leh wuxuu la mid noqon karaa Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya oo sidan oo kale isaguna u khiyaameeyay qaranka Soomaaliyeed oo shaqadii loo igmaday ee ahayd in markaas uu ahaado wasiirka maaliyadda markii waqtigiisa oo dhamaaday xukuumaddiina ay dhacday Hargeysa iska dhiibay haddana ah la taliyaha amniga ama la taliyaha ee markaas qaaska ah ee madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro senator Cismaan Abuukar Dube oo ka soo jeedo deegaanada Somaliland ayaa iska casilay kursigii xildhibaannimo ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya wasiir Dube waxa uu sheegay in uu markaas ka tanaasulay qadiyadii uu aaminsanaa ee Soomaaliya warkan waa war la yaab leh Dube ugu waa wasiir wuxuu ahaa wasiir hore sidoo kale wuxuu ahaa xildhibaan hadda ka tirsan sidoo kalena waa abwaan inta badan suugaantiisa ku cabira markaas xaaladda dalka haddaba in Dube iscazilo maxay ka dhigan tahay muxuu ka dhigan yahay hadal jeedinta madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ee labada gole ee baarlamaanka maanta uu ka sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo khudbad dheer u dhinacyo badan taabanay sida hordhac muuqaalka aan kugu wadaagay ka jeediyay golaha waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay waxa soconaya soo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Aar ayaa isaguna gaaray xarunta golaha shacabka oo goordhow khudbad Somaliland uu ka jeedinayay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud labada guddoon ee baarlamaanka ay ku sugnaayeen sidoo kale xildhibaano 300 ku dhow ayaa ku sugnaa hoolka ra'iisul wasaare Xamse waa uu joogay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waa la mid madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ma jirin mas'uul ka maqnaa madaxda ugu sareysa dalka oo dhan waa ay joogeen wayna u dhamaayeen kulankan senator Cismaan Abuukar Dube wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya haddana ah senator ka soo jeedo deegaanada Somaliland ayaa iscasilaadiisana waxay ku soo aaday xilli xasaasi ah laakiin wuxuu intaas ku sii daray inuu qadiyadii Soomaali weyn ee uu aaminsanaa uu meesha ka saaray hadda ogow sababta Soomaaliya waa inay ka soo horjeesatay ictiraafka la sheegay markaasi in ay ka heshay Yahuuda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa go'aan degdeg ah wuxuu ka yeeshay xaaladda soo korortay golaha ammaanka ayaa markaasi waxay yeesheen kulan degdeg ah kadib go'aankii Israel ay ku aqoonsatay Somaliland waxaana garab istaag buuxa ay u muujiyeen madax banaanida Soomaaliya qaramada midoobay waa ururka ugu weyn dunida ee adduunka oo dhan uu ku mideysan yahay jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa oo dhan Soomaaliya qayb ay ka tahay kulankan wuxuu ku soo aadayaa xilli xiisad diblomaasiyadeed ay cirka isku shareertay maalmo ka hor markaasi waxay wararku sheegayaan in janjiraha Israel u fadhiya qaramada midoobay Dano ninka lagu magacaabo sabti uu xaqiijiyay qabsoomida kulanka isagoo oo sheegay in dawladdu lagu saari doono cawaaqibka siyaasadeed ee talaabadan taas oo dhalisay cambaareen kulul oo ka timid Muqdisho iyo soo kale quwadaha gobolka ee muhiimka ah haddaba si kasta ha ahaato xiisadda cirka ay isku sii shareeraysaa Somaliland waxay u aragtaa dalka madax bannaan Soomaaliya oo waxay leeyihiin waxaan helnay aqoonsi ama ictiraaf caalami ah halka dawladda federaalka ay leedahay waxa tahay gobolka waqooyi ee Soomaaliya ama gobolada waqooyi ee Soomaaliya wali waxa tihiin qayb ka mid ah Soomaaliya waa ay diidan yihiin madaxda dawladda federaalka golaha wasiirada shiray yeesheen go'aan degdeg ah laga soo saaray madaxweyne Farmaajo arrinkan uu ka hadlay Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheekh Shariif iyo madaxdii hore dhammaantood shir ay ku yeesheen magaalada Muqdisho habeennimadii xalay war isku mid ah ay soo saareen haddaba Somaliland waxa la isweydiinayaa waxa ay ku bedelatay markaasi
aqoonsigan khudbadda madaxweyne xashi maxamuud oo dhameystiran ayaan ku hayaa laakiin waxaan rabaa inaan xog kooban ka siiyo Donald Trump madaxweynaha Mareykanka oo ka hadlay mowqifkiisa ku aadan in Somaliland loo aqoonsado jamhuuriyad madax bannaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan degdeg u raaci doonin tallaabada ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu ku aqoonsaday maamulka Somaliland Trump oo uu ramay wargeyska New York Post Sabtidii shalay waxa uu cadeeyay in uu u baahan yahay in uu darso qorshaha Israelna uu ka muuqdo degdeg badan isaguna uu hadda raali ka ahayn jimcihii toddobaadkan Netanyahu iyo madaxweynaha Somaliland Ciro ayaa kala saxiixday bayaan wadajir oo Israel dal ugu aqoonsanayso markaasi Somaliland oo ah gobol kamid ah Soomaaliya inkastoo Netanyahu uu sheegay in heshiiskan uu waafaqsan yahay ruuxda heshiisyada markaasi Ibrahim ama Abraham Agros kuwaas oo uu markaasi himdisay madaxweyne Trump isla markaana u ballan qaaday madaxweyne Ciro inuu Trump u gudbin doono rabitaanka iyo helitaanka Somaliland ee ku biirista hindisahaas ama heshiiskaasi markaasi hadda New York Post waxay ku waramaysaa in Trump arrinkan uu diiday Trump kolkii hore yahuudi isaga gadaal ka riixay oo lahaa ictiraafa Somaliland aniguna waa in ku xigaa laakiin la taliyaashiisa ayaa ku yiri nin fudeed badan baa tahay ha ku degdegin xiisadan iyo qadiyadan ma aha mid fudud waxaan la taliyaashiisa ay ugu digeen in uu go'aankaasi ku raaco Israel Trump arrinkii dib ayuu u eegay wayna la cuslaatay in uu aqoonsi siiyo qayb kamid ah Soomaaliya ama gobol ka tirsan Soomaaliya Suudaanta koonfureed iyo dalal kale oo leeslaha ugu yaraan way ictiraafi doonaan Somaliland ayaa iyaguna dib u dhigay maadaama xiisada sidii la moodayay aysan ahayn Somaliland dhibaato weyn ayaa kaga iman karta arrinkan oo ugu dhow Xuutiyiinta Yemen oo laga yaabo inay duqeymo ku qarqiyaan qaybo kamid ah Somaliland Xuutiga iyo sidoo kale Israel waxa ka dhaxeeya dagaal iyadoo oo Yemen markaasi gantaalada laga ganana ay si toos u gaaraan Tel Aviv oo bariga dhexe Hargeysana warkeeda badaa oo si toos ay Xuutigu markaas u duqeyn kara cabsidaas lixaad kale ayaa jirta war walba oo soo kordha halkan aan kugu soo gudbinaya muuqaalka like saar channelkana subscribe soo ila daawo muuqaalkan bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guddoonka labada aqal xubnaha sharafta leh ee labada gole madaxda qaybaha kala duwan ee dowladda mudanayaal iyo marweyn salaan kadib sida aad la wada socotaan 26 December 2025 Benjamin Netanyahu Prime Minister-ka ra'iisul wasaaraha Israel ayaa xadgudubkii ugu weynaa u geystay qaranimada Soomaaliya dhibaato badan duruufo adag wax badan ay soo martay laakiin sooma marin midda 26 December oo Netanyahu uu sameeyay oo kale sooma marin Soomaaliya markii uu si sharci darro ah oo ugu dhawaaqay in uu dawlad madax bannaan u aqoonsanayo deegaanada waqooyi galbeed ee dalkeena tallaabada Netanyahu qaaday waa mid aan marnaba la aqbali karin gaf iyo gardarro ku ah dhammaan qawaaniinta caalamka heshiisyada iyo shuruucda dunida ay ku dhaqanto waxay ka dhigan tahay duulaan qaawan oo lagu soo qaaday qarannimada madax bannaanida iyo midnimada dhuleed iyo dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay cadeynaysaa ay cod dheer ku leedahay gobollada waqooyi ee jamhuuriyadda ee loo yaqaan Somaliland waa qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya dunida cod dheer ayaan intaas ku gaarsiinaynaa kuna xusuusinaynaa waxaan u sheegaynaa caalamka xadgudubka iyo isku dayga Netanyahu ee kala qaybinta Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya inuu qatar ku yahay xasiloonida iyo deganaanshiyaha caalamka iyo midka gobolka waxa uu na dhiirigelinayaa kooxaha xagjirka ah iyo dhaqdhaqaaqyada gooni u goosadka ee ka jira ama ka jiri kara gobollo badan oo caalamka ka mid ah oo ay hami geli doonto in ay xumaanta iyo kala go'go'u ay suurtagal yihiin waa arrin aan si adag oo adag uga digayno shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiintooda culimadooda hormuudkooda bulshada waxay muujiyeen sida ay uga go'an tahay ka hortagga ku xadgudubka qarannimadooda
taas oo fariin cad u ah Netanyahu iyo kuwa la midka ah iyo in ay ku hungoobi doonaan isku daygooda guracan. waxaan si weyn ugu mahad celinaynaa dalalka aan saaxiibada nahay iyo kuwa aan walaalaha nahay iyo hay-adaha gobolka iyo kuwa caalamka ee sida adag uga hor yimiday xadgudubka uu ku kacay Netanyahu. Soomaaliya marnaba ma aqbalayso mana aqbali doonto in shacabka reer Falastiin khasab looga soo salguuriyo dhulkooda ayaga ay xaqa u leeyihiin, khasabna loo geeyo meel kale oo ka baxsan dhulkooda, ha noqoto Soomaaliya ama meel kale ha ahaatee. hore ayaan u diidnay, haddana waan diidanahay. arrinkan waa isku day lagu baabi'inayo mabda'a caalamiga ah ee xalka laba dowladood inay dhulkaas Falastiin ka dhaqan qaado ee dunida horey isugu raacday, iyo in ay Falastiin hesho dowlad ay iyadu leedahay oo magaalada Qudusta bari ay u tahay caasimad. sidoo kale waxaan ka digaynaa in Israa'iil iyo ra'iisul wasaaraheeda Netanyahu ay isku dayaan in ay dhulka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya u soo raraan dagaalada fidnada ah ee ay gobolka bariga dhexe ka wadaan. Soomaaliya ma ogola in dhulkeeda loo adeegsado saldhigyo looga duulo dalal kale, waxayna diyaar u tahay in ay kaalin ka qaadato xasiloonida gobolka iyo caalamka guud ahaan. waxaan ugu baaqaynaa dalalka aan walaalaha iyo saaxiibada nahay iyo guud ahaan hay-adaha dawliga ah ee caalamka, kuwa qaaradeed iyo kuwa goboleedba, in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah ku garab istaagaan dadaalada diblomaasiyadeed iyo sharci ee ay isaga difaacayso dulmiga xadgudubka qaawan ee uu Netanyahu kula kacay Soomaaliya iyo shacabkeeda. shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay isdejiyaan, ayna u midoobaan difaaca midnimada iyo gobonnimada dhuleed ee dalkeenna ee duulaanka qaawan lagu soo qaaday. lama joogo xilli aan qolo iyo gobol u xafiiltanno, waa inaan xooggeenna iyo xigmadeenna isugu geynaa sidii aan u difaacan lahayn jiritaankeenna iyo qarannimadeenna. walaalayaal, mid waxaan leeyahay madaxda gobollada waqooyi ee Somaliland ee uu ugu horeeyo madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro, shacabka gobollada waqooyi jiha qaldan ha u riixina, hana u horseedina masiir mugdi ah. xayndaabkooda goboleed iyo kooda deriskooda soo jireenka ahna ha ka horkeenina. walaalayaal, meeshaas waddo la mahadiyo idinkama jirto ee ha u jeesanina. waxaan mar kale ku celinayaa oo aan xasuusinayaa walaalaha waqooyiga Soomaaliya iyo caalamkaba in mowqifka dowladda Soomaaliya aanay wax iska bedelin, iskana bedeli doonin, kaasoo ahaana doona in wada hadal macno leh lala galo maamulka Somaliland si midnimada loo xoojiyo, isfaham waaga jirana meesha looga saaro, oo Soomaaliya mid oo dhinac u wada jeeda aan u helno, waana heli karnaa haddii la yiraahdo. midna waxaan leeyahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan walaalaha gobollada waqooyi ku dhaqan, la idinkuma yaqaano taariikhdiina, kana mid ma ahan in si sahlan dagaanadiina loogu marti qaado cadowga ummadda. aaway taariikhdii awowayaashii ugu diideen cadowgu inuu ilmo ku dhalo dhulkiina, iska daa inuu si sahlan oo doqon magarato ah oo ku soo dego dalka ah. walaalaha waqooyigow, maanta
waxaad haysataan fursad iyo awood aad ku diidaan in la soo dego dalkiina laakiin ogaada berri ma haysan doontaan fursaddaas marka cadowgu dhulka dego ee uu lugaha ku fidsado waxaan cod dheer ku leenahay ninkii kala saar lahow ninkii kala sooc wadow ninkii si xun u fakarow aday talada ku sheegto sidaad moodaysa maahee warhooy soomaaliya soomaali baa leh ugu dambayntii soomaaliya waxaa ka go'an inay qaaddo tallaabo kasta oo diblomaasiyadeed iyo qaanuun oo lagama maarmaan ah si ay u difaacdo madax bannaanideeda midnimadeeda iyo xuduudaheeda caalamku aqoonsan yahay gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan walaalaha xusuusinayaa dhammaan oo aan leeyahay adinka oo wada og dhammaan shacabka soomaaliyeedna uu yaqaano dhawaaqa iyo hadaaqa dhaqanna aan u lahaan jirnay waayaha dhibka badan ee taariikhdeena soo marayna halhayska inoo ahayd tulad geelahoo dhacan baa toogasho u bareertaane ma dhulkoo dhammoo tagayaan nina dhagax u tuurayn aad iyo aad ayaa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu haween aad u mahadsan tahay adiga tiimkaaga waa ku fasaxaynaa anigu golaha labada aqal waa isku xaraynaa si maaragtay aan u ambaqaano arrimaha aan u guda galno oon go-aan u soo saarno haddii alla idmo insha allah